السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي دمانتين ميولول بدا دونكو كجوجتان وان إذن سلام يا سلام كبعدي وحان مانتا ربائنا إذن لو ذاقو صدح الريمود ربائنا الصوك كوبو وحاربا مركز صدحدان الريمود با انتينا سومالي نماذا جعل انتينا وناقا جعل انتينا isku ra'yiga aan hay kale waxaan aaminsanahay dadka friendska ilaa boqolkiiba 80 isku ra'yi baan nahay waayo waxaan fiiriyaa message-yada la soo diro markaan akhriyo 8 message waxaan helaa hal xabo oo negative ah 8 message oo dhahaya waan kugu taageersanahay waxaanad sheegayso waxaan arkayaa hal xabo oo marka negative ah sida darteed waxaan ku qiimeeyay boqolkiiba 80 dadkan friendska ku nahay facebooka inay ra'yiga igu taageersan intiina igu taageersan marka waxaan rabaa inaad fariintaydan gudbisaan oo gaarsiisaan inta xumaha raacdaysa saddexda arrimood aan idin la wadaagayo waxa weeyaan mid horta waxyaabo qaar waxa jira dadka aan la wadaagin oo public la soo dhigin laakiin tani waa arrin guud waa waxaan xalay toolo ku riyooday hase ahaatee riyaaniga igu saabsan ma ahayn mid khaasiya ma ahayn laakiin mid Soomaaliya ku saabsan bay ahayd taas way marka aan rabo inaan idin kula wadaago mid labaadna waxay tahay runta inaan idin sheego runta aan idin sheegayaan wax ku saabsan tahay waa laba qodob marka saddexda qodob baa waxaan doonayaa marka hore inaan idin soo hormariyo kuwa runta ah kuwa runta waxay yihiin oo aan rabo xaqiiqda inaan idin sheego dad fara badan markay la soo hadlayaan ma jecli horta runtiina waxyaabaha negative-ka ka hadlo ama aan ka falceliyo ama aan ka jawaab celiyo laakiinse hadday noqoto in run la isku sheego wax walba wad sheegaysaa dadka ii soo diraya qoraalada badankooda ama intooda negative-ka markaan badankooda fiiriyo waxay yiraahdaan qof dumar baa tahay haddii aad tahay qof dumarana gurigaaga ku eko qof dumar baa tahay adkaagu waa cawro qof dumar baa tahay maxaan ku yiraahdaa rag baa is haye Soomaaliya rag baa isku haye ka dhexbax qof dumar baa tahay يعني waxyaabo fara badan oo hadda aanan soo koobi karin runtii aad fara badan xaqiiqadan marka doonaya inaan dadkaas u sheego xaqiiqadan u sheegayaan waxay tahay waan ogahay aniga qof dumar ah waanahay waxyaabaha aad dumarka ku handadaan ama aad ku aamusisaan waxa kamid ah inaad diinta ugu soo gabataan idinku baalmarsan diinta oo aan ku dhaqmaynin oo maxaan ku yiraahdaa aysan idin celinaynin ba waxa rabtaan inaad dumarka dabar uga dhigtaan diinta isla markaana aad wixii danihiina iyo waxyaabaha aad damacsan tihiin idinka caqabadayn kara ama idinka hor istaagi kara ay waxaad soo qaadataan diin aanan xitaa ku salaysnayn ama ku saxsanayn waxyaabaha aad doonaysaan inaad ku xadidaan ama dabarka uga dhigtaan markaad aniga diinta ii soo qaadanayso qofku ma xadgudbin anigu markaad aniga diinta ii soo qaadanayso qofna kuma aanan been abuuran marka aad diinta aniga ii soo qaadanayso qof maanta iga eed sheeganaya oo aan ku xadgudbay ma jiro iyo wax kasta oo Ilaahay abuurtay oo aan ku xadgudbay ma jiro qofkana waxa la yiri yani Ilaahay baa quraankiisa wuxuu ku leeyahay makhluuqayga in nabadgeli yani qofka runtiisa inaad sheegtaa waa sax inaad ummad ka badbaadiso qof khaayin ana waa sax inta diintu way ku faraysaa qofkii khaldan inaad qabato qof kasto khaldan anigu waan sheegay khaladkiisa taana aniga kuma qaldani hadalkaygana bal meeshaad adigu leedahay waxba ha noo sheegin oo diinta ii diidaysa inaan wax kuu sheego waxaan rabaa inaad cadaynay keento arrinta kale waxay tahay xaqiiqada ah runta ah laga indha qarsanayo muddada inta leeg dhibka aanu ku soo jirnay hadii la idin sheegi lahaa hadii la idin ka warrami lahaa hadii la idin cadayn lahaa hadii la idin kashfin lahaa nababa soo gaarsiisan dhibaatada aan maanta ku jirno hadiina idinku aad iska qaban lahaydeen dhibka aad wadaan wanimanka aniga hadalladaas ii soo qorayaan wali hadalka wada hadii aad iska qaban lahaydeen ama cid idinka qabata rag iyo dumar waxay doonto ha noqotay ay jiri lahayd ama hore runta idinku sheegtaa ama rag runta u sheegayaan oo arki lahayn maba soo istaagneen mana idin la hadleen
laakiinse kaalintaadii adigaa gabay markaad leedahay rag baa is hayana dhulka igama xigtid anigana waan ku dhashay adigana waad ku dhalatay xuquuqdaad ku leedahay mid la mida ama ka badan baan ku leeyahay inaan u dagaalamana waa waajib korkayga saaran marka ha igu daalin hana igu xiiqin mana ka asmacayo mana ka aqbalayo hadallada propaganda ay aad soo dirayso intaasi waxaan u wada hadalka dadka negative-ka ah wali ana ku sii dhex socda marka dadka negative-ka ah waxay kaloo يعني استعمالان هذا لما ما هو والله هذا مركن حسوسته عدد ساكن عندي جسني وكيا بقاركود ما وضح حسوسته اوكي عدد كون سكيل جد بيا ما أهم قف صادقة تفعل لكن هذا لذا ما هذا استعمالي هل يلا بصدق حبارها وين أنا كسوقاته وحير دمرك وما في عنا دق سنمو دمرك وما في عنا عدكرنمو dumarka uma fiicna buu yiri qodobkii saddexaad adkarnimo iyo geesinimo iyo gacan furnaan saddexda midna dumarka uma fiicna buu yiri bal meesha geesinimada loogu diiday dumarka hala ii sheego meesha adkarnimada loogu diidayna hala ii sheego meesha loogu diiday deeqsinimadana hala ii sheego diinta islaamku ma oran ragowna wax baxsada dumarowna wax bixinina diintu ma aysan oran qof kasto ilaahay wax siiyo wax la yiri wax lagu siiyo wax ka bixi runta ka hadal oo xaq mar walba dilaaci lama oran ragow sheeg dumar oo ka aams lama oran yaani si walba waxa la isugu dayaya wax walba waa lagu soo adeegsanaya marka hadalkii oo kooban qodobka labaad ee aan rabo inaan ka iraahdo dadka negative-ka wixii yahay maxaa dawladda u taageertaa dawladda maxaa dadka uga xigsataa dawladda مسك قبيل باتهين يعني مدحوينها بدسحكتان برئيس الوزراء بدسحكتان حد لبدو ضوا مانتها dadka miikaaxiyaan iyagu isku qabiil ma yanarta taasaan idin weydiinaya jawaab inta saa idinku filan inaan aniga midkoodna qabiil ilaahay laakiin se horaan waxaan idinku iri wuxuun baa ehelkay ah dad ninkaana faqaanee si wax ila arkayeen midayso ujeedada ay u socdaan iyo midaydu way midaysan tahay sida awgeed bay dadka iga xigaan waxaan kaloo rabay inaan idhaahdo yacni marka aad qof taageerayso wax aad ku taageerayso ayaa jira hadduu wixii aad ku taageerayso ka leexdo dabcan waad ka leexanaysaa marka khayre iyo farmaajo qofka taageersanay waa qof ka daalay dulmi waa qof ka daalay musuqmaasuq waa qof ka daalay cadaalad darro waa qof ka daalay yacni xumaan dhammaanteed qofka diidan ee iyaga ka soo horjeeda intaasoo ku caana maala waa qof u buka oo u bartay musuqmaasuq waa qof u buka oo doonaya wax isdaba marin waa qof u buka oo doonaya oo ku raaxaysto ku faraxsan in dalkaani laga qowlaysto waa dad ku faraxsan oo doonaya in boob iyo dhac iyo hanti dadweyne oo lagu qaato bilaash raali ka aweyaan dadka diidan khayre iyo farmaajo intaasun bay ku diidan yihiin haddaba dadow ogaada hadalkaygan kiinii rumaysanaya waxaan rabaa inuu sii sheergareeyo qof kasta oo inaga mida oo Soomaaliya oo diidan khayre iyo farmaajo ogow inuu yahay qof inta aan soo sheegay ku faraxsan oo xumadoon ah qofka taageersanna maanta bulshada Soomaaliyeed way wada taageersan tahay qof kasto taageersan wuxuu diidan yahay wixii xumaan aan soo tiriyay oo dhan wuxuu diidan yahay dhac iyo xoolo dadweyne oo la qaato iyo xaaraan iyo xisdaba maris iyo corruption iyo xumaato iyo cadaalad darro intaasuu diidan yahay qofka maanta farmaajo iyo khayra taageersan marka inta aan idin sheegay runta ah waa taasa riyadan xalay ku riyoodayna runtii waxay tahay yani qofku marka uu wax ku riyoonayo waxa la yiraahdaa waa laba siyood waxna waa waxaad adiga niyada ku haysay oo markii aad sii seexanaysay qalbigaaga ku weynaa waxna waa wax adiga niyada ku haynaad seexatay laakiin si ilaahay kugu soo rido oo riya ah badana waxyaabo marka niyada ku hayso aad sii seexanayso aad ku riyooto iska qarow baa la yiraahdaa oo wixii ba maskaxdaada soo celcelinaysa
laakiin si xalay marka riyoonayo aniga niyadda kuma aanan haynin Soomaaliya oo yacni kamaanan sii fakaraynin markasta niyadda waan ku hayaa markasta waan jeclay wanaageeda oo maalin walba waan ka hadlayaa laakiin si xilligan seexanayay ma aysan ku jirin niyaddeeda waxaan ku riyooday waxna ku riyooday Soomaaliya oo yacni Soomaaliya waa dhul aad u ballaaran magaalooyinkeeduna way kooban yihiin baadiyaheeduna aad buu tiro badan yahay buuray leedahay dhul ballaan bay leedahay dhul reer guuraagu degay leedahay dhul iska cidla baa jira wadamo badan oo iska aan cidina degin marka dhulkaas banaanka marka magaalada laga tago dhulkaasi banaanka ee buuraha ah ee duurka ee hawdka ah oo Soomaaliya laakiin dhexdeeda ayaa waxa ka socday mashruuciyo la leeyahay waxa lagu banaynayaa dhulka dhan waxa laga sameeyaa dhismayaal laamiyo iyo maxaan ku raday beero marka cagaf baa la marinaya meel kasta ama buur ah ama geedo ama yacni waad aragtay meel aan lama degaana marka la yimaado khasab in la gooyo u baahan tahay marka dhulkaas waxa wallahi ku riyoonaya cagaf saa loo marsiinayo oo la leeyahay Soomaaliya waxa laga dhigayaa dhul siman oo beer hadday noqoto guryo in laga dhiso hadday noqoto haddii mashruucyo kale la geliyo inay noqotaba dhul siman ay noqdaan marka riyadaasna xalito loo ku riyooday niyadana kuma hay markan si saxanay riyooyinkaygana badankooda waa la arkaa insha Allah dhawaana waan arki doonaa haddii Ilaahay yiraahdo aad iyo aad baan idin salaam ya dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi